Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah kareemaadkeena Forever amba kambanigeena Forever. Kareemkaas oo loo yaqaano Forever Awakening Eye Cream. Kareemkan wuxuu ka mid yahay kareemada loo isticmaalo dhinaca skinka, weliba qaybta indhaha hoostooda loo isticmaalo. Awakening Eye Creamkan waxaan isla eegi doonaa waxyaalaha uu ka kooban yahay, faa'iidooyinkiisa iyo isticmaalkiisa. Forever Awakening Eye Cream waxa uu ka kooban yahay waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay collagen-ta, taasoo jirkeena ka caawisa inay straighten ka dhigto amba smooth ay ka dhigto oo ay sinto. Sidoo kale wuxuu ka kooban yahay aloe vera ama dacarti ayuu ka kooban yahay, iyo sidoo kale peptide technology taasoo jirka ka caawisa inay hydrated siiso amba ay fuuqbax celin maqaarka jirka u samayso. Awakening Eye Creamkan inta badan waxaa loogu talagalay inuu caawiyo delicate area, yacni indhaha hoostooda, maqaarka jilicsan ee indhaha hoostooda. Sida caadiga ah, Rabbi subxaana wa tacaala maqaarkeena dhammaan jirkeenu way ku kala duwan yihiin, meelba maqaarka ka adag tahay, meelna way ka jilicsan tahay. Sidaynu ognahay, wejigu wuxuu ka mid yahay maqaarkeena meelaha ugu jilicsan, haddana isla wejiga ayaa goobaha ay ku kala duwan yihiin oo maqaarkii ay sii kala jilicsan yihiin. Indhaha, eriyada indhaha waxa la yiraahdaa maqaarka ku yaali waa maqaarka ugu jilicsan ee wax walba u nugul inta badan. Waa meelaha inta badan laga dareemo qofka, xataa maanta haddii dhibaato ku timaado meelaha laga dareemo weeyaan. Haddii stress noqoto, haddii hurdadu ku yar tahay qofka, waxyaalahaas oo dhan, age-ka ama da'doo kale meelaha ugu horeysa ee ay kasoo baxdo qofka waa indhaha hoostooda. Sidaa daraaddeed kareemkani waxa uu qofka ka caawinayaa in uu yareeyo yacni dhammaan line-ka laalaabyada indhaha hoostooda ku yimaada, iyo sidoo kale madowga indhaha hoostooda ku yimaada. Faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah saan hore ugu soo sheegnayba, waxa uu kor u qaadaa amba uu yareeyaa madowga ku yimaada indhaha hoostooda. Sidoo kale wuxuu yareeyaa wrinkleska amba laalaabka amba jacdadka ku yimaada indhaha hoostooda ee ay inta badan keento collagen-ta oo qofka ku yaraata. Sidoo kale waxa uu aad iyo aad indhihii hoostoodii uu ka dhigaa, iyo maqaarkaas qaybta indhaha hoostooda oo dhanba mid rested ah oo qurux badan, amba yacni wejigaaga wuxuu ka dhigayaa mid maasha Allah si fiican u werweraya. Awakening Eye Creamkan haddaba waxaynu sheegi doonaa maxaa loo isticmaalaa. Waxaa loo isticmaalaa sidaynu soo sheegnayba inuu madowga indhaha hoostooda ka biiyo, age-ka amba da'da indhaha hoostooda ku timaado kale inuu ka biiyo, anti-aging baa ku jira ay ka mid tahay collagen-tu. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa inuu jirkeena amba maqaarka indhaha hoostooda oo kale uu u ilaaliyo hydrated-ka amba biyaha oo kale uu u ilaaliyo oo uu jirkii fuuqbax celin uu siiyo. Sidee loo isticmaalayaa haddaba? Qofku wuxuu isticmaalayaa 3 drops amba 2 dhibcood amba 3 dhibcood ayuu indhaha hoostooda dhigayaa, kadibna 2 farood oo farihiisa ka mid ah ayaa uu masaaj yar ugu samaynayaa intaa indhaha hoostooda oo dhan ayaa uu sidaasi u marinaya. Resultiga ama natiijada kareemkani qofku wuxuu ku arkayaa 15 cisho keliya ayuu ku arkayaa. Dhammaan dadka dhibaatooyinkaasi ay haystaan, sida indhihii inay laalaab samaynayaan oo kale, oo uu yacni maqaarkii oo kale kusoo laabmaya indhaha, sidoo kale madow indhaha hoostooda ku leh, waxyaalahaas indhaha hoostooda ku yimaado oo dhan iyo indhaha dushoodaba aad buu ugu fiican yahay. Marka isticmaalkiisuna waa sidaas.